haweeney ayaa subax kasta u diyaarin jirtay wiilkeeda cunno waxayna ugu ridi jirtay boorsadiisa si uu ugu qadeeyo laakiin maalin kasta waxa uu jidka ku sii mari jiray nin darbi jiif ah wuxuuna qayb ka siin jiray cunnadiisa marar badan hooyadii ayaa oran jirtay maxaad cunnada ninka wax uga siinaysaa miyadan adigu gaajoonayn isagana waxa uu ugu jawaabi jiray haa waxaa laga yaabaa in aan mararka qaar gaajoodo laakiin waan u adkaystaa maxaa yeelay isaga waxba ma haysto maalin ayay hooyadii daba gashay cunugeedii si ay iyadu u aragtay ninka uu sheegayo waxa ayna maqashay isagoo cunugii ku oranaya waxaa tahay qof aad u wanaagsan waxaana dareemay inuu khayrkii weli bulshada dhexdeeda baaqi ku yahay maamadii ayaa hore u soo dhaqaaqday waxa ayna ninkii ku tiri weligaa ma ku fikirtay in aad nolosha wax ka bedesho ninkii ayaa yiri wax badan ayaan isku dayay laakiin fursad uma helin sideed u aragtaa inaad ka shaqaysid darjiinka iskuulka waxa ay u baahan yihiin qof dhirta u waraabiya aniga ayaana maamulaha kaala hadlaya ninkii wuu u mahadceliyay waxaana u bilaabatay nolol cusub hooyadii ayaa cunugeedii ku tiri hooyo marka aad dadka caawinayso cunno kali ah lama siiyo ee dhiirigelinna